dhimatay meedkeeda hooyadeedan kasoo aqaaday gabadhii yareed oo hooyadeed shalay qaraxa ku dhimatay ilaa hadda la baafinaya asxaabay marka waxa lagu hayaa saldhigga booliska ayuu ilaa hadda gabadh yarta ay xalay ku hoyatay saakan ilaa hadda waxa wara lagama hayo oo maartad ilaa hadda uuman xasan sheekh maxamuud ayaana arrinkii maqlay oo soo booqday gabadha marka wali waxa faahfaahin lagama hayo waa gabadh saqiira ay 2 sano jir waay gabadhaas waxaa si naxariis leh laga codsanay asxaabay inaa meel kasta muuqaalka ay gaarsiiso oo gabadha reerkeeda in la helo ayaa loo baahan yahay marka gaarsiin dhig isku yeela Soomaaliya gabadha cid ala cid taqaan hooyadeed dhimatay si degdeg ah eheladii qaraabada u yimaadaan geesay ciidanka arrimada kala soo xiriiraan booliiska Soomaaliya kala soo xiriiraan hooyadeed dhimatay meedkeeda hooyadeedan kasoo aqaaday booliisku wuxuu taagan yahay waa habeenay maalin geesay gabadha cid ala cid taqaan hooyadeed dhimatay si degdeg ah eheladii qaraabada u yimaadaan geesay ciidanka arrimada kala soo xiriiraan booliiska Soomaaliya kala soo xiriiraan muqdisho ayaa maanta markale gabadhaasi waxay si naxariis leh asxaabay uga codsanayaan meel kasta ay joogaan dadka Soomaaliyeed in gabadhaas yarta oo saqiirta la sheegayo dadka lagu raadiyo ilaa haddeer maalin iyo habeen laga joogo ilaa hadda qof maartay soo heebteed galato oo soo doonta la waayay maadaama hooyadeed ayadoo dusha ku xiran oo maartay waxaan baarsan tahay qarax dhacay oo dhimatay ay ilaahay ka baadi marka malgeey magalin ilaahay in ayada hooyadeed dhaafto hooyada dhimato laakiin ayada inolaato ayaa qorneed ciidamada booliska ayaa soo qaadeen hadda salagyada booliska kala xiriir